Bakayle ayaa 100 kiilo oo dahab ah iibiyey si uu u helo 2 karo. Dukaankii lahaa ayaa yiri bakaylaha mar walba sidaas ayuu sameeyaa. Ninkii arrintaas maqlay wuxuu isla markiiba yeeshay fikir fiican ah. Wuxuu si qarsoodi ah u dabagalay bakaylaha isagoo rajaynaya inuu helo meesha uu dahabku ka soo baxo. Markii bakayluhu socday, jirkiisa oo dhan ayaa si lama filaan ah u galiyay. Kadib wuxuu dhulka ka qoday qayb yar oo dahab ah, laakiin bakayluhu wuxuu u arkay inay aad u yar tahay. Markaas si fudud ayuu dhinac ugu tuuray. Ninkii markiiba wuu soo booday wuxuuna soo jeediyey inay iskaashadaan. Wuxuu yiri bakayluhu kaliya ha ogaado meesha dahabku ku jiro, isagana wuu qodi doonaa. Kadibna konton ayay u qaybsanayaan. Bakaylihii isla markiiba wuu ogolaaday, markaasay wada safreen. Wax yar kadib bakayluhu mar kale ayuu dareemay dahab meel u dhow. Ninkii aad buu u farxay wuxuuna bilaabay inuu si waali ah u qodo. Laakiin markii dahabkii soo baxay ayuu yiri dhammaan dahabku isaga ayuu leeyahay. Xitaa dhagax ayuu qaaday oo bakaylaha ku eriyey. Bakaylihii wuxuu arkay in god dheer buur dhaceed hore yaallo. Wuxuu rabay inuu ninka uga digo, laakiin dhagax kale ayaa lagu soo tuuray oo hadalkii ka joojiyey. Bakaylihii waxba ma qaban karin, wuxuuna arkay ninkii oo si toos ah uga dhacay godkii. Markii dambe bakayluhu wuxuu iska dhigay inuu dahab qodayo ninka hortiisa. Sida la filayay, ninkii bakaylaha ayuu eriyey wuxuuna bilaabay inuu isagu qodo. Laakiin ma uusan ogaan inuu kor taagan yahay gaari xamuul ah. Bakaylihii wuxuu shiday matoorka gaariga, kadibna ninkii ayuu si toos ah uga tuuray godkii. Ninkii aad buu u carooday wuxuuna bilaabay inuu bakaylaha adduunka oo dhan ku eriyo. Ugu dambayn bakayluhu mar kale ayuu dareemay dahab dhulka hoostiisa ku jira. Ninkii hunguri weynaa sida caadadiisa ah wuxuu tuuray qorigiisii wuxuuna bilaabay inuu si waali ah u qodo. Markan runtii dahab ayuu helay, laakiin wuxuu noqday khasnadii qaranka. Isla markiiba booliiska ayaa qabtay oo xabsiga dhigay.